qaabkee Somaliland Soomaaliya u hadashaa qaabkan ay u hadashaa niway tiisu noloto tiisu liidato miyaa looga iman kara lug hayana ka tarin kara waxa weeye anagu Soomaaliya saasan ula hadalnaa reer soolna qaabkan ula hadalnaa oday 8 jira oo abwaan sheeganaya oo reer awdala oo leh anigu waxaan ahay Soomaali anigu waxaan ahay Soomaali anigu waxaan ahay Soomaali Soomaalinimadana waan ku dhimanaya waxa igu soo dhacday war odayga weyn ee 8 jirka yaa Soomaalinimada ku haysta bal hadda ile jinsiyadeedu waa Soomaali waaya Soomaali ayaa nala Soomaali ayaa nahay dad Soomaaliyeed ayaa nahay yaa ku haysta waxa la markaas kama tagayno Soomaalinimada bal hadda eeg inta jeer ee uu ku celinayo anigu waxaan ahay Soomaali anigu waxaan ahay Soomaali anigu waxaan ahay Soomaali Soomaalinimada yaa ku haysta waxa halka ka dareemaysaa nacaybka iyo cuqdada la qaadsiiyay reer Somaliland hadii ay heshiis Itoobiya la galeen in Soomaalinimada ka bixeen baa la aaminsiiyay in yar baan fahmaysa barnaamijka noocana waxa weeye anigu haddaan maanta Axmaar iyo Oromo iyo Tigray aan la galay heshiis de Soomaalinimada kama bixin dantaydan ka fikiray dantaydu halkii ugu jirtana war haddii Ilaahay baa igu og haddii ay maanta Yuhuudan iga gasho anigu waan ka soo Yuhuuda dantayda waan ka soo dhamaysanaya iyagana dantayga leeyihiin waan u dhamaynaya Soomaalinimada iyo Islaamnimada cid iga xigta ma jirto Islaam baan ahay waxa weeye qof Muslimaan ahay waxaan qof Soomaaliyaan ahay laakiin dantayda haddii ay Soomaali inteeda kale ii dhameyn weeydi meeshii dantayda aan ka dhaxarko ee wax iga soo kordhayaan ayaan tagaya maxaa la igu qooqinayaa markaad Etoobiyaan heshiis la gashay Etoobiyaan noqotay warafkiina kuma noqonayo 8 jirkaana waxaan leeyahay adeero 8 jirna waa tahay goorma Soomaalinimadaadi masana oo dhan baad uga shakiday aday ceeb kugu tahay iyo wax laga xumaado yaqyaqsi muuse waxa u saamaxaya oo u ogolaanaya inuu abiye la kulmaayo waa la joog aad la joogto weyn kalma waxa ka tagay waxa tagay dhulbaanta tagay soo qabay way there is no reason adu mission garay wada khabiir bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba aad baan u salaamayaa channelkan haddaad ku cusub tahay oo reer Somaliland tahay channelka subscribe saar sidoo kale muuqaalkan share garee faalana xagga hoose dhig haddaad fikir haysid aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan kugu celinayaa muuqaalkan like saar haddaad ila fikir tahayna muuqaalkan share garee waxaan dul istaagi doonaa gobolka Awdal oo lagu wado kicin bulsho in la kiciyo oo waxa la doonayaa ma garanaysaa dad badan baa lagu soo abaabulaya xaflado fara badan ayaa lagu dhigayaa dalka dibadiisa ama dalalka la yiraahdo reer galbeedka ee qurbaha cadeynta bartan idin keeni doona sida la doonayo sidii Sool ama gobolka Sool oo kale magaalada Laascaanood oo kale sidii imika ay faraha Somaliland uga baxday inay tan faraha uga baxday ayaa la doonayaa bal waxaan doonayaa qodobka labaad ee ka hadlayana waxa weeye Soomaalinimada qaabka loo nacsiiyay waxa weeye haddii aad Somaliland maqashidba Oromo ku tilmaamayaan heshiis waxay moodayaan markaa heshiis la galay Axmaar ama Oromo in Somaliland Soomaalinimada kaga baxayaan dadka Somaliland degani inay Soomaalinimada kaga baxayaan bal moodaya bal waan dul istaagi doonaa marka hore bal waxaad leeyahay wiil dhalinyaro reer Awdala iyo oday reer Awdala sidoo kale hooyo reer Sool ayeenanteedii oo Somaliland Soomaaliba ma haysto haysta marka hore bal islaanta ayeenanteedan ku horeyno Somaliland waxa weeyaan Oromo waaya yar iyo weyn markii Somaliland ay danaheeda ka shaqaysay ee tiri Axmaar baan wax ka doonaynaa san adduunweynaha kaleba wax uga doonano
Ethiopia waxay ka mid tahay dalalka Afrika ugu awoodda badan leh haddii aan anagu heshiis u bandhigno oo iyaduna waxaan idinkaga bedelanaa ay tiraahdo maxaan ku diidanaa balse yar ilaa weyn waxa la iska soo jaraya haddaad Somaliland tihiin waxa tihiin Oromo mar labaad waxaad leegtiin waxa weey dalka reer awdal baa waliba saa laga dhaadhicinaya beesha isaaq lagama dhaadhicin karo bal waxaad leegtiin mar labaad oday 8 jira oo abwaan sheeganaya oo reer awdala oo leh anigu waxaan hay Soomaali anigu waxaan hay Soomaali anigu waxaan hay Soomaali Soomaalinimadana waan ku dhimanaya waxa igu soo dhacday war odayga weyn ee 8 jirka yaa Soomaalinimada ku haysta bal hadda ile anagu waxaan arkaa jisiyadeenu waa Soomaali waaya Soomaali ayaa nahay Soomaali ayaa nahay dad Soomaaliyeed ayaa nahay yaa ku haysta waxaan leeyahay markaas kama tagayno Soomaalinimada bal hadda eeg inta jeer ee uu ku celinayo anigu waxaan hay Soomaali anigu waxaan hay Soomaali anigu waxaan hay Soomaali Soomaalinimada yaa ku haysta waxa halka ka dareemaysaa nacaybka iyo cuqdada la qaadsiiyay reer Somaliland haddii ay heshiis Ethiopia la galeen inay Soomaalinimada ka bixeen baa la aaminsiiyay in yar baana fahmaysa barnaamijka noocana waxa weey anigu haddaan maanta Axmaar iyo Oromo iyo Tigray aan la galay heshiis de Soomaalinimada kama bixin dantaydan ka fikiray dantaydu halkii ugu jirtana war haddii ilaahay baa igu og haddii ay maanta yuhuudan iga gasho anigu waan ka soo yuhuuda dantayda waan ka soo dhamaysanaya iyagana dantayga leeyihiin waan u dhamaynaya Soomaalinimada iyo Islaamnimada cid iga xigtaa ma jirto Islaam baanahay waxa weey qof muslimaanahay waxaan qof Soomaaliyaanahay laakiin dantayda haddii ay Soomaali inteeda kale ii dhameyn weeydi meeshii dantayda aan ka dhaxarko ee wax iga soo kordhayaan ayaan tagaya maxaa la igu xooqinayaa markaad Ethiopian heshiis la gashaad Ethiopian noqotay warafkiina kuma noqonayo 8 jirkaana waxaan leeyahay adeero 8 jirna waa tahay goorma Soomaalinimadaadi masana oo dhan baad uga shakiday aday ceeb kugu tahay iyo wax laga xumaado yaqyaqsi bal hadda ileega mar labaad heshiiskii ay Somaliland iyo Soomaaliya wada galeen odayga 8 jirka abwaanka sheeganaya ee qoraaga sheeganaya ee aftahanka sheeganaya sidoo uu yasayo وما قصر كل نتانا أقصر كبير وينه ها أحمرك هذو أنا قدمت هذو لمين ويايو heshiiskii aan wada galay aqoonsiga haduu isii waayo anigu ma xoolaanahay bad ma bixinayade laakiin muhiimadu waxa weey Soomaaliya waxa la reer awdo inta ugu badan imika waxa laga dhaadhiciyay isaaq Oromaydi ku darayaan waxa weey isaaq dantiisu ka shaqeynaya reer awdalna waa dad goba waxaan wada leenahay deegaan baan wada leenahay dal baan wada dhisanay dastuur baan wada leenahay reer awdalna waxa lagu xuuqinaya looga sheekeeyay ha laga daayo reer awdal dad la siri kara maaha dad lagu oran kara maaha Soomaalinimadii ay saaqidi ka saarayaan waa dad maseerkooda iyo aragtidooda nagula jooga bir hore iska tagina hadayna aragtidooda nagula joogin laakiin kuwa umada kala shikisiinaya waxa weey hala iska qabto billaahi calaykum hala iska qabto 8 jir imika Soomaalinimadiisii ka shikiyay bal xagee loola macaamilaa sidee loola dhaqmaa waaba 8 jir abwaana uu sheeganaya af Soomaaligana uu og yahay halku ka yimid halka lagu qoray intii la qorayo waqtigii la qoray haddana Soomaalinimadii uu ka shikiyay waxaana waa barnaamij laga shaqeeyay weey bal waxa leeyahay wiilka reer awdal ee hadii ay sool tagtay madaxweyne Muuse heshiiska Itoobiya sababtu la soo galay waxa weey ee uu wali ka sii noolay waa la joogitaanka reer awdal la joogaan bal abaabulkan eega Muuse waxa u saamaxaya oo u ogolaanaya inuu abiye la kulmaayo waa la joog aad la joogto weyn kala ma waxa ka tagay dhulbahantaa tagay soo waa qabayl weey there is no reason aad u meeshin garan weyda qabiil wadarkasi wuxuu leeyahay reer awdal waxa lagu wadaa kicin baa lagu wadaa waxa la doonayaa dadka qaaqlayaasha ee baraha bulshada ka hadla in lacag lagu soo fangareeyo kabacdi ay fikrad badan ay dhex keenaan oo ay bedelaan dadka reer awdal ee nabadda ku naaloonaya war waxa weey wiilka waxaan leeyahay reer awdal waxaan dadka noocaas iska qabta dhigna ha u dhigina waxa weey dadka noocaasi waxay ku soo qaateen lacag yoobadi ku soo qaateen af xumo
waxa weeye nabadna waa kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto kolka waxaan leeyahay war dadka reer awdal ee sharafta leh ee masiirkooda iyo aragtiyooda nagula jooga ee wax nala qaybsanaya waxaan ku leeyahay niyow waxaan ku leeyahay ka xisho oo caqligooda ka xisho dadka kama caqli badnide